munaasabad xilwareejin ah oo ay ka soo qayb galeen guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada Marwo Basma Caamir Axmed, xildhibaano oo uu ugu horeeyo xildhibaan Maxamed Nadiif, odayaal dhaqameedyo, guddoomiyaashii hore u soo maray degmada, madax ka socotay maamulka gobolka Banaadir, xafiiska madaxweynaha, qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa waxay ka dhacday xarunta degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Allaha kuu fududeeyo ayaan leenahay walaalkeen guddoomiye Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta la wareegay xilka guddoomiyaha degmada Kaxda. Guddoomiyihii hore ee degmada Kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed Yare, isagana waxaan leenahay shaqo fiican ayaad qabatay, horumar weyn ayaad degmada gaarsiisay, dadkuna markhaati ayay ka yihiin, taariikhduna kuugu qorantay. Waxaan kugu xasuusan doonaa horumaradii aad ka samaysay adeegyada aasaasiga u ah bulshada sida ammaanka, ilaalinta deegaanka, caafimaadka, waddooyinka, waxbarashada, dalxiiska iyo isdhexgalka bulshada. Sannadihii u dambeeyey degmada oo sannad weliba qaadaysay bilada dalxiiska Soomaaliya ay bixiso Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska iyo waxqabad kale oo aad u badan. Waxaana ku rajaynaynaa horumar ka sii sareeya halkaagii hore. runtii maanta farxad ayay noo tahay, khaasatan aniga maanta farxad ayay ii tahay in aan wareejiyo degmadii Kaxda oo bulshadeedii qaybaheedii kala duwanaa iyo siyaasiyiinteedii dhammaantood ay markhaati ka yihiin, quruxna badan, wanaagsan, aniguna aan ka nabad qabo inaan wareejiyo maanta runtii sharaf ayay ii tahay. ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinayaa, bacdallahna waxaan uga mahad celinayaa bulshada degmada Kaxda ku nool oo aan aqaano duntooda iyo wanaagooda. waxaan rabaa inaan idhaahdo guddoomiye soo dhowow, degmadaadii ku soo dhowow, dadkaaga ku soo dhowow, dad wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo degmada ayagu iskale oo laxjecla ka hayso oo wanaaggeeda ka shaqeeya ayaa degan, adiguna aad taqaano lagaaga turjumayn. degmadan dhibaatada ugu weyn ay ka soo mareen waxaa dareemi karaa qofka aqoon-yahanka ee fahmi kara meel aan jidgelin, oon ceel ku oolin, oon waddo lahayn, oon dawladdii Soomaaliya dhexe aan waxba ku qabanaynin, dawlad xoog badan oo federaal oo Soomaaliyeed oo wax u qabatanaysa jirin, inay gobolkii Banaadir degmo abuuraan, degmo sameeyaan, shuruudihii u buuxiyaan, laamidaan quruxda badanna sameeyaan. wareer Kaxdow maalimaha inila joogi doonaa, maalimahaasna waxaa inaga codsaha inaad si fiican ila shaqaysaan, maadaama wiilkiinni ahay anigoo qurux badan inaan inii imaado, anoo qurux badanna inaga baxo, waxaana inii ballan qaadaa hantidiinna ammaanadaana waa inii ilaalin doonaa. ينالو كلا تاجين